isla markiiba ilaahay wuxuu ugu jawaabay fastajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min durin. Ducadaas shaqsi ahaanteyda wax fara badan ayaan ka arkay. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. كسو دواد يوتيوب جنالك زكي آدم waxaan mahad u sugnaatay Alle subxaanahu wa tacaala. marka xigta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabta ku xiran YouTube channelka inta daawanaysa. waa barnaamijkeeni fahamka soonka iyo ilaalintiisa xalqadiisa 8. xalqadan waxaa uga hadli doonaa ducooyin aan uga faa'iidaysanayno inta ka dhiman bisha barakeysan ee Ramadaan, maadaama aan ku guda jirno xilliyada ducada la aqbalo xilliga ugu fadliga badan. ducada koowaad: laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin. dabcan ducadaas shaqsi ahaanteyda wax fara badan ayaan ka arkay xilliyada humuumta iyo gumuumta ama xilliyada murugada ay soo wajahdo. markii aan akhristo isla markiiba si degdeg ah ayaa la iigu jawaabaa oo la iiga qaada xamdan lillaah wa shukran lillaah. sida nabiyullaahi yuunus calayhi salaam markii uu galay calooshii nibriga haddana uu kusii dhex jiro bad gudaheeda, markii uu yidhi laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin, isla markiiba ilaahay wuxuu ugu jawaabay fastajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min durin. haddii aad tahay qof murugo haysato dhankee doonta ha kaa jirta murugadaas, ku dadaal ducadaas ogana faa'iidayso inta ka dhiman bisha barakeysan ee Ramadaan. ducada labaad: rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarifiin. dabcan dadka awlaad raadiska ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inta aanan haysanin ha siiyo, inta haysatana allah u barakeeyo, cimri dheer iyo caafimaadna allah u siiyo. waa ducadii uu ku duceystay nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam isagoo shayb noqday, xaaskiisuna ay ahayd mid caqiim ah oo aan dhalin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku manaystay nabiyullah yaxyaa calayhi salaam. markaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaysa adiga iyo duriyadaadaba inuu idinku hagaajiyo, idinku toosiyo salaada, waxaad badsanaysaa ducadan: rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min durriyatii rabbanaa wataqabbal ducaa. haddii aad tahay qof ganacsada, badsanaysaa ducadan: allaahumma innii as'aluka min fadlika wa raxmatik fa innahu laa yamlikuha ilaa anta. ducadan waa midii labaad oo idin leeyahay shaqsi ahaan saameyn weyn ayay ugu yeelatay. waxaan kaloo badsanaynaa inaan ku ducaysano: rabbi shrax lii sadrii wayassir lii amrii wahlul cuqdatan min lisaani. waa ducadii uu ku ducaystay nabiyullaahi muusa calayhi salaam. wixii kale oo adiga aad jeceshahay oo muraad gaara ilaahay subxaanahu wa tacaala in aad si toos ah ugu bandhigato. xilliyada ducada la aqbalaya ayaa waxaan ka taaban doonaa in yar: min al-aadaani wal-iqaama, adinka iyo aqinka inta u dhexayso; thuluthu leyli al-akhiir, habeenkii marka 3 loo qaybiyo qaybta dambe oo loola jeedo qiyaamul leylka xilliga la istaagayo. sidoo kale inta markii qofka uu afuraayo iyadana ducadiisa waa maqbuul, iyo marka roobka uu da'ayo. aad ay u fara badan yihiin xilliyada ducada la aqbalo. ducada xigta: allaahumma innaka cafuwun tuhibbul cafwa fa'fu cannii. waatii aan uga soo hadalnay xalqooyinkii hore. ducada kale ee xigta: allaahumma kfinii bixalaalika can xaraamik wa agninii bifadlika canman siwaak. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وضح لغارة ومركي أد الله سبحانه وتعالى بريس وحيتاي كو الإخلاص لله تعالى. لبو إني تهنيد هذا متجوبتو. صدح waxa aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baryayso wax dambika iimaanaynin inuu yahay. meesha aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baryayso iyo sidoo kaleete dharka aad xiran tahay iyo waxa aad cunayso iyo waxa aad cabaysaa in ay yihiin xalaal. qofka hadduu mar xaaraan quudanayo ducadiisa aqbal ma noqoto marnaba. haddaba waxaa rajaynayaa in wax uun laga faa'iiday ducooyinkan. waxaan ku soo celinayaa mar kaleente: laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin. in aad ku celcelisaa 100 jeer ilaa 10 jeer. degdeg ayaad u arki doontaa waxa aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka barisay. sug inta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalayo ducadaada. degdeg ha isgelinin. 5tii xalqe ugu horeysay waxaa isweydiinaynay su'aalo. waxaa rabaa su'aalaha isweydiinaynay 2 ka mid ah in aan ka jawaabo. su'aalaha waxaa ka mid ahaa: imise Ramadaan ayuu soomay Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee? iyaga waxa uu soomay 9 soom. waxaa kaleeto ka mid ahaa su'aalaha: sheeg imise jeer ayaa lagu sheegay kelimad Ramadaan quraanka? waxaa lagu sheegay hal mar. weliba waxaa lagu sheegay في سورة البقرة. رجينا muuqaalka in laga faa'iiday. halkaas ayaan u egtahay xalqadeena. muuqaalka muuqaal mid intaan ku kulmi doono. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.